adigaagani daawanaya ayaan kula hadlayaa xumaanta waad faafisaa heesaha waad faafisaa maxaa ku diiday inaad saliga nabiga faafsid walaal macan caawa jimci hal mar ma igu la salii kartaa xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam sidoo allah adigana kugu saliyo 10 jeer oo aan jecelahay mar walba inaan ku xasuusiyo saliga nabiga hay laabin ballanta hadda igu la salli nabigu wuxuu yiri alayhi salaam waxaad samaysaa meesha xanuunku ka hayo waxaad saartaa gacantaada kadib 3 jeer waxaad tiraahdaa bismillaah 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 kadib waxaad ku dartaa 7 jeer acuudu bi'izzatillaah wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uxaadir 7 jeer markaad dhahdo waad caafimaadaysaa ninkii saxaabiga ahaa wuxuu sameeyey gacantii uu meesha saaray xanuunka hayay 3 jeer ayuu yiri bismillaah 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 kadibna 7 jeer ayuu wuxuu akhriyay acuudu bi'izzatillaah wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uxaadir saxaabiga wuxuu yiri markii 7aad markaan dhameeyay xanuunkii كأنما لم يحدث سوى دحين أوكار دعاداسي ذاتك مسلمين تأف صومالي وكهضة لا شرقاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم حولي كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لبك المذوذ إنسانك أنت دون ذا جوغان لفظتهن مالك يوم الآخر ميزانك كو علي سنيان الله سبحانه وتعالى نوجع لي هاي آية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا بدك المذوذ مروق والبوكا يستي لها كاقد القاضيو دب والبوكا يستي لها كاقد القاضيو كوكو دنبي دافيو كوكو نحريسانيو كوكو جعلانيو وانا لبدك المذوذ الله ugu jecel adkaartiisa oo ah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wala ka faa'iideysan inta aad nooshahay wala ma kalmadooda dunida ku fudud carabkaaga ku fudud afkaaga ku fudud laakiin maalinka yawmal aakhiro ku culus lagana yaaba durtooda inaad jannada ku gasho. Assalaamu alaykum. maalintan jumcada waxa sunnah in la badiyo salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam. nabiga yiri inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah maalmihiina waxa ugu fadli badan maalinta jumcada faakthiruu calaya min as-salaah waxaa badisaan salliga igu sallinaysaan badiya fa inna salaatakum macruudatun calay salliga igu sallinaysaan waa la ii bandhigayaa waa la ii keenayaa waa isoo gaaraya markaasay saxaabadu waxay yaa rasuulallah kayfa tu'radu salaatuna calayka waqad aramta see salligeena aan kugu sallinayno lagugu bandhigayaa adigoo ah mid baaliyoobay oo lafihiisa ay baaba'een markaasaa nabigu yiri maya saas ma ahan inna allaha qad harrama cala al-ardi an ta'kula ajsaad al-anbiyaa ilaahay arlada waa ka xarimay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay qofka hal maalin ilaahay dartii u sooma yacni soon sunna ah waxa wajigiisa naarta laga fogeeyaa in 7 sano loo socdo ku duceysa ducadani hadii uu jiro qof aad adigu xiriir wadaagtihiin ama qof aad adigu jeceshahay misana aad doonaysid inaad mar uu nolosha aad ku midoodaan oo aad noqotaan lamaane xalaal isku ah oo guuleystay waxaad dhahdaa allahumma inni ahbabtu 'abdan min 'ibadika fala tahrimni qurbah اللهم إن كان خيرا لي فاجعله من نصيبي وإن كان شرا فاجعل فيه الخير كله واكتبه من نصيبي ربي أنت تعلم سري وضعفي وقلة حيلتي فأجمل علي فضلك ويسر أمري بقدرتك اللهم آمين. waxaad ku duceysataa ducadani xiliyada aad adigu sujuudsan tahay waxaana aad iyo aad u sii fiicnaan lahayd inaad ducada iyo sujuuda dhexdeeda aad ku xustid qofka aad doonaysid inaad nolosha ku midoodaan allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa dhammaan intii doonaysa inay nolosha ku midoobaan inuu alla amuurahooda u fududeeyo gaarsii fiidiyoga walaalaha. Wassalaamu calaykum.